kulanti wanaagsan khiyaarta nala socota idilkiinba meel kasta oo aad joogtaan waa 9 November sanadku waa 2025 qodobada tibintan aan idinkugu hayo waxaa kamid ah qubarada reer galbeedku waxay qiranayaan awoodda madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo hogaamiyo wadanka Turkiga inaan haatan indhaha laga qarsan karin isla markaana damaca ku aadan in la caadiyeeyo xiriirka Israa'iil iyo wadamada muslimiinta iyo kuwa Carabta oo mar walba saameyn ku leeyahay mashruucaasi Erdogan haddii ay aqbalaan ay socon karayaan haddii ay ka hor yimaadana ay noqon karayaan damacaasi Mareykanka iyo ka shaqayntiisa mashruucaasi mid aan suuragal noqon karin haddaba maxay tahay awoodda ka dhex muuqanaysa Erdogan iyo waliba waxyaabaha qubaradu ay sida gaarka u sheegayaan oo haatan soo baxaya xilli Trump uu soo bandhigay mid ka mid ah dowladaha dunida Islaamka oo ku dhawaaqday in xiriir diblomaasiyadeed oo dhameystiran iyo ictiraaf caalami ah ay siiyeenba Israa'iil warbaan idinkaga haya arrintaasi oo qubarada diblomaasiyadda ay si weyn iminka uga falanqeynayaan wargeysada waaweyn iyo warbaahinta adduunka madaxweynaha wadanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo ra'iisul wasaaraha wadanka Pakistan Mohammed Shehbaz Sharif ayaa kulmay waxana ay ka wada hadleen arrin xasaasi ah oo ku saabsan amniga wadamadaasi talaabadan waxay ka dhigan tahay mid aan farxad gelin doonin Netanyahu warbaan idinkaga haya arrinta khiyaarta inala socotay waxaan sidoo kale eegi doonaa inta barnaamijka aynu ku guda jirno warar soo baxaya oo tilmaamaya in dagaalka wadanka Suudaan ka soconaya uu abuurayo xiisad cusub oo kale Suudaan ma laba dhinac ayaa loo kala goynayaa muxuu yahay damaca Imaaraadku uu ka raadinayo xabad joojinta Darfur doonaysa inay ka dhaqan gasho oo kooxda dacmo sariic ay qaadeen gudoomiyaha gobolka Darfur ee Cabdifataax Burhaan raacsan ayaa waxa uu ka dhawaaqay arrin aad iyo aad xasaasi u ah oo taabanaysa madax banaanida wadankaasi iyo waliba damaca Imaaraadku uu doonayo oo hadda banaanka u soo baxaya ugu dambeyntiina dowladda Ruushku waxa ay ka hadashay warar maalmihii ugu dambeeyay u soo dusaya warbaahinta oo ku saabsan in madaxweynaha wadankaasi Vladimir Putin iyo wasiirka waqtiga dheer la shaqeynaya ee amuraha dibadda Sergey Lavrov ay kala tageen isla markaana ay isku khilaafeen siyaasadda amuraha dibadda iyo sida loola hadlayo dowladda Mareykanka haddaba Lavrov oo waayadan laga waayo saaxadda siyaasadda xagee ku dambeeyay maxaase ka jira wararka warbaahinta u soo dusaya qodobadaas ayaan tabintan idinkugu hayaa khiyaarta inala socotay soo dhawaada waa Barrow Show iyo Cabdilcasiis Barrow idinla socodsiinaya aad baad u mahadsantihiin iyadoo dhawaan dowladda Kazakhstan ay ku dhawaaqday in xiriir caadi ah ay la sameyn doonto Israa'iil isla markaana ay isweydaarsan doonaan safaarado waxa soo baxaya qubarada reer galbeedka oo ka digaya in aan la iska indhatirin awoodda lixaad kale ee madaxweynaha wadanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo ku saabsan dhaqdhaqaaqa uu ka sameynayo gobolka bariga dhexe iyo dowladdiisu inay tahay mid dhan walba saameyn kale haddii la oran lahaa dhinaca siyaasadda militariga iyo dhaqaalaha isla markaana damaca Mareykanka ee Trump uu hormuudku ka yahay ee ku aadan in la caadiyeeyo cilaaqaadka diblomaasiga ah ee wadamada Islaamka iyo Israa'iil haddii Erdogan uu ka hor yimaado aanu shaqayn karin wargeysada qaar ayaa soo bandhigaya xogo aad iyo aad la yaab u leh waxaana ka mid ah wargeyska la yiraahdo Ra'yul Yawm waxa uu leeyahay go'aanka lama filaanka ah ee Kazakhstan ee ku biirtay heshiiska caadiyeynta cilaaqaadka diblomaasiga ah oo ay la leedahay Israa'iil ayaa sababay hadal hayn weyn iyo su'aalo ballaaran oo ku saabsan waqtiga iyo cidda ka dambaysa talaabadan taas oo timid wax yar kadib xabad joojintii dagaalka Gaza iyo waliba burbur iyo khasaare soo gaaray shicibka Falastiiniyiinta ah ee halkaasi ku sugan haddaba go'aankan iyo faahfaahinta lagu fasirayo maxay tahay ayuu wargeyska ciwaan hoosaad uga dhigay warbixintiisa waxana uu leeyahay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay in Kazakhstan ay ku biirtay heshiiska loo yaqaan Ibraahimiyada inta lagu guda jiray shirka 5+1 ee lagu qabtay buu yiri aqalka cad isagoo sheegay in tani ay tahay doodii ugu horeysay ee ku biirida heshiiska intii uu xilka markii labaad hayay Trump
Trump oo qoraal ku soo qoray bartiisa Truth Social waxa uu yiri Kazakhstan waa wadankii ugu horeeyay ee ku biiray heshiiska xilligan xasaasiga ah oo waqtigii labaad aan jooga xafiiska waa kii ugu horeeyay wadamo kalena waa ay soo socdaan ayuu yiri xilli Sacuudi Arabiya la filayo in dhaxal sugaheeda 18 bishan uu tagi doono aqalka cad ee wadanka Mareykanka waxa uu ballan qaaday inuu dhawaan la qaadan doono xaflad saxiix rasmi ah dhinacyadan kala duwan dhinaca kale madaxweynaha Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev ayaa sheegay ma xusin heshiisyada Abraham kulanka uu la yeeshay Trump balse saraakiil Mareykan ayaa cadeeyay in ujeedadu ay tahay in dib loo kiciyo dhaqdhaqaaqyada heshiiskan Trump uu muddada dheer doonaya iyo in la dhiso iskaashi dhaqaale iyo mid amni cusub oo u dhaxeeya wadamada muslimiinta ah iyo Israa'iil labadaba sababta ay waqtigan xilligan loo doortay maxay tahay Kazakhstan waa dal muslim ah oo hodan ku ah naftada gaaska iyo macdanta uraniumka oo dawlado fara badan oo adduunka ay aad u raadinayaan isla markaana xiriir diblomaasiyadeed la lahaa Israa'iil tan iyo 1992 marka Trump arrintan uu banaanka keenayay wadankan ilaa 92 ay Israa'iil macaamilayeen hase ahaatee ku biiritaankan rasmi ah waxa uu u muuqanayaa mid siyaasadeed iyo mid dhaqaale ku dhisan oo la jaan qaadaya baa la yiri xaaladda cusub ee Washington iyo Tel Aviv iyadoo lagu doonayo in lagu ballaariyo heshiisyadan Abraham ee bariga dhexe iminka ka soconaya majalada Mareykanka ee sida weyn loo akhriyay National Interest ayaa talaabadan ku tilmaantay isbedel taariikhi ah oo u gogol xaaraysa baytiri isdhaxgalka Israa'iil iyo dhowr dal oo muslimiin ah oo ku yaala Aasiya iyo Afrika labadaba warbixintu waxay sidoo kale sheegtay in muddo dheer uu isku dayay inuu qanciyo Trump wadamada Aasiyada dhexe sida Tajikistan, Turkmenistan iyo Uzbekistan in ay raacaan wadada Kazakhstan si loo ballaariyo saameynta Mareykanka iyo Israa'iil kadib dagaalkii Gaza haddaba markay intaas soo baxeen kadib waxa halkan lagu fasirayaa in tallaabooyinkan oo dhan ay noqon karaan hal bacaad lagu lisay haddii dawladda Turkiga aysan la iman qanaaco rasmi ah oo arrintan laga dhaadhicin karo qoraalka ayaa muujinaya baa la yiri Turkiga inuu yahay xudunta ugu muhiimsan ee go'aaminta guusha ama fashilka qorshahan maadaama uu leeyahay saameyn weyn oo dhaqaale iyo mid diineed oo ka jirta Aasiyada dhexe warbixintu waxay sidoo kale xustay in haddii Ankara aan laga dhaadhicin qaab dhismeedkan cusub ay suuragal tahay inay carqaladayso mashruucan oo ay si weyn uga hortimaado waxa sidoo kale la sheegay in Washington ay qorsheynayso in la dhiso qaab cusub oo la yiraahdo kooxda 6+2 taas oo ay ku jiraan Israa'iil iyo Azerbaijan si loo xoojiyo isku xirnaanta ganacsi iyo amni ee u dhaxeeya Aasiya iyo Yurub iyadoo la sii marinaya baa la yiri bariga dhexe iyo waliba badda Mediterranean-ka wadamada ku yaala falanqaynta qubarada ayaa waxa ay sidoo kale dul dhigayaan jawaab ka soo baxday Falastiiniyiinta qabiirka amniga ee lagu magacaabo Rami Abu Zayda ayaa sheegay in tallaabada Kazakhstan ay tahay baa la yiri ololo warbaahineed oo ka weyn natiijada siyaasadeed oo meesha taala marka dhinacyo kala duwan laga fiiriyo waxa uu leeyahay in xiriirka labada dal oo muddo 30 sano jiray banaanka la keeno ujeedada waxay tahay arrimo la xiriira in la caadiyeeyo iibsashada shidaalka hubka iyo sirdoonka dhinacyadan ay wadaagaan dibna ay u wadaagi doonaan taas oo lagu iibinayo badeecada Mareykanka ee ku aadan heshiiskan in laga dhigo wax weyn oo hadda soo kordhay waxa intaa ku daray go'aanka cusub inuu yahay mid dib u nooleynaya xiriir hore oo la geliyay markaan xiriir hore u jiray oo hadda dib boorka looga jafayo dhinaca Falastiiniyiinta gaar ahaan Xamaas oo arrintan ka carootay waxay leeyihiin dawladaha muslimiinta waa inaanay ku kadsoomin in ay aqoonsadaan Israa'iil oo hadda haysata bay leeyihiin dhulka Falastiiniyiinta isla wararka Aasiya ayaan ku guda jiray madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa la kulmay ra'iisul wasaaraha wadanka Pakistan Mohammad Shahbaz Sharif kulanka ayaa ka dhacay
magaalada Baku ee caasimadda waddanka Azerbaijan. kulanku waxa uu daaranaa xaaladda siyaasadda gobolka bariga dhexe iyo koonfurta Aasiya sidii xiriirka dib u soo celinta heshiiska ah ee Pakistan iyo Afghanistan ay u noqon lahayd mid dhammaystiran. warbixin lagu daabacay bogga wararka ee wakaaladda wararka Turkiga Anadolu waxa uu leeyahay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta magaalada Baku ee dalka Azerbaijan kula kulmay ra'iisul wasaaraha Pakistan Shehbaz Sharif iyagoo ka wada hadlay xoojinta xiriirka laba geesoodka iyo xaaladda amni ee gobolka koonfurta Aasiya. Erdogan ayaa intii lagu guda jiray kulanka Pakistan iyo Afghanistan ay sheegay inay muhiim tahay inay ilaaliyaan xiriirka labada dal iyo iskaashiga muhiimka ah oo aysan u muuqan in labada dhinac laga faa'iideysto. Turkiga waxa uu sidoo kale hoosta ka xariiqay in Ankara door muhiim ah ay ka ciyaarayso isku soo dhaweynta labada dhinac iyo sidii dagaalka loo ebi lahaa. dhinaca kale ra'iisul wasaaraha Pakistan Shehbaz Sharif ayaa uga mahad celiyay Turkiga kaalinta joogtada uu ku lahaa xabad joojinta iyo midnimada dunida Islaamka, waxaana uu ku sheegay in Pakistan ay qiimo gaar ah siinayso xiriirka soo jireenka ah ee walaalnimo ee Turkiga iyo sidoo kale Azerbaijan ay la leedahay dowladda Pakistan. kulanka ayaa ku soo beegmay xilli gobolka uu wajahayo caqabad amni iyo mid siyaasadeed, halka Turkiga uu wajahayo diblomaasiyadiisa firfircoon ee ku wajahan xasilinta Aasiyada dhexe iyo koonfurta Aasiya labadaba. isku soo dhawaanshaha dalalkan iyo dhamaynta dagaalka Pakistan iyo Afghanistan waxay xanuun ku noqonaysaa dalka Hindiya iyo sidoo kale nidaamka Israel oo u arkaya fursad ay kaga faa'iideysan karaan hogaamiyaasha dowladahaasi oo aysan isku wanaagsanayn. dhinaca kale madaxweyne Vladimir Putin iyo waliba wasiirkiisa 21 sano la shaqeynaya ninka la yiraahdo Sergey Lavrov waxay hadda u muuqataa in ay dunida ku ciyaarayaan marka loo eego diblomaasiyadda, markii warbaahinta qaar loo soo gudbiyay in labadan mas'uul ay qaati kala taagan yihiin oo ay hadda wada shaqeyn kareen, isla markaana shaqooyinkii Sergey Lavrov oo wasiirka amuraha dibadda ee hoos loo dhigay. war soo baxay ayaa sheegaya inuu jiray khilaaf cusub oo u dhaxeeya labadan mas'uul, waa Lavrov oo wasiirka ah iyo Vladimir Putin oo madaxweynaha ah. 21 sano ayay labadan mas'uul wada shaqeynayaan. warbaahinta Ruushka iyo diblomaasiyadeed labadaba waxay tilmaameen in Putin uu ka reebay ninkan kulamo muhiim ah sida laga soo xigtay dhinacyo kala duwan, waxaana ka mid ah shirka G20 ee la filayo in lagu qabto waddanka South Africa dabayaaqada bisha. sidoo kale muddo 2 toddobaad ah wararka warbaahinta Ruushka waa laga waayay Sergey Lavrov shaqooyinkiisa la xiriiray wasaaradda amuraha dibadda, iyadoo dad hoose ay ka soo muuqanayeen, taas oo lagu macneeyay labada dhinac inay isku fahmi waayeen sida loo qaban lahaa heshiiskii Budapest ee wadahadalkii Budapest ku dhaxmari lahaa waa Hungary, Trump iyo Vladimir Putin, kaasoo ugu dambeyntii baaqday baa la yiri markii cadaadis la saaray Putin, cadaadiskaas oo ka imaanaya Sergey Lavrov. mas'uuliyiin diblomaasiyadda Mareykanka ka shaqeynaya waxay leeyihiin wasiirka amuraha dibadda waa uu ka niyad jabay la shaqeynta dowladda Mareykanka, laakiin afhayeenka aqalka Kremlinka Dmitry Peskov oo la hadlay warbaahinta waxa uu yiri hadalladaasi waa ku tiri guteen. Sergey Lavrovna waa nin qiimo sare leh oo siyaasadda amuraha dibadda guula ka keenay. Putinna inuu la shaqeeyo waa ku qanacsan yahay, ee kaliya wadamada naflacaariga ah ayaa intaa naf bidaya.